waxaanu la qabanqaabinayaa dawladda Soomaaliya ay dhawaan u diri doontaa wafdi horena waa loogu diray waa looga xaajooday arrintaas iyada iyo xalka kama dambaysta noqon kara in loola tago South Africa wafdi la diro waan la xiriirnay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga waxaan filahayaa in tala laga gaari doono sidii Soomaalida ay ugu badbaadi lahaayeen naftooda iyo xoolahooda marka xusuusintaas iyo dareenkan kicinaga ahayd dawladda Soomaaliya inay dhibayso waxyaabaha ummadeeda halka ku haysta ummadana Soomaaliyeed oo dalka degan waxaan u jeedinay inay dhowraan sharciyada dalka ka jira ay kana fiirsadaan meelaha ay hantidooda gelinayaan iyo waxa nabadgelyadooda ku dambeyn doonto dawladda Soomaaliya waxay ka ahayd xusuus taageeradii ay ka geysatay sidii Afrika loo xoreyn lahaa gaar ahaan koonfurta Afrika gumaysidiidkii waqtiga dheer socday iyo doorka ay Soomaaliya ka ciyaartay taasay qalbiga ku hayeen ummadda Soomaaliyeed oo iska haajirtay markii Soomaaliya burbur xumi ka dhacay oo ragaadiyay noloshii ummadda waxay aadeen dalalka islahaayeen abaal baad ku leedihiin South Africa dad badan baa haystay inay tahay dalkoodii labaad waana garan karnaa inaan ayaga kaliya aysan ahayn dilmadu ee ay dad badan boqolaalo iyo kumayaalo ay dhici karto bishiiba ugu yaraan in 100 qof oo wadaniyiin lagu laayo meesha lagu dilo dadku hubaysan yihiin Soomaaliduna de kuwaasay ka mid ahayd laakiin sida xun oo wax loo dilay ayaa dadka soo jiitay qalbigooda marka